ومركي يقول رئيس الدولة الصومالية اسكو فيلناتو هدان كو سو قادو انكا اسكو فيلان marka laga reebo dawladaha walaalaha ee nacaawiya deen ma qaadano zero weeye in budget aanu ama qof ka qaadanay Soomaaliyeed ama cid dawlad ka amahno dalka wax deena maanu gelin wixiina la siiyay dawladaha saaxiibka ay una siiyeen way uga mahad celinaynaa budgetka way noogu jiraan inta kalena waxaanu anagu soo saarano kaliya ku soconaa qof kasta oo dawladda u shaqeeya mushahar ayuu helaa inta u dhaxaysa 25 ilaa 30 ayuu mushaharkiisa helaa oo mushahar waliba badan meelaha qaar kood marka la barbar dhigo wadamo badan oo degan marka la barbar dhigo mushahar badan weeye annaka shaqaalaha iyagu qaar kood $1,000 iyo ka badan bay qaataan madaxda dawladdu lacag bay qaataan waa lacag runtii meelo badan oo marka la barbar dhigo Ethiopia noogu dhow ka mid tahay aad aan uga badanay mushaharka ay qaataan shaqaalaha Soomaaliyeed iyo dadka dawladda u shaqeeya marka wax badan baanu gaarnay waad ogtahay hay'adaha adduunka oo dhan baa aad u amaana dhaqaalaha waxaanu ka sameynay horumar aan iyo reform aan la qiyaasi karin waxaanu leenahay system maaliyadeed oo aad u horumarsan oo sidaan ku sheegay haddana wadamo badan oo Afrikaana ka horumarsan ayaanu leenahay oo tusaale ay naga qaataan waxay tusaale u qaataan maalin kasta wasaaradda maaliyadda weydiiyaan qaabka ay SMB-ga u buuxiyeen yani benchmark-ka in dhaqaalahaaga systemkaaga qurxiso mid international standard uu noqdo Somalia hadda wadamo badan baa wasaaradda maaliyadda u dirtaa khuburo oo ay kala talisaa inay sidii systemkooda maaliyadda u hagaajin lahaayeen waxaan ku guuleysanay inaanu qof kasta sidii ciidamadii oo kale payment lagu siiyo oo wadankayagu hadda nidaam transparency uu ku socdo systemka noo dhismay ayaa muhiim ah markii hore sanadka 2000 bilowgiisii wasaaradda badan baa lacag qaadi jiray hadda ma jirto shilin kasta oo dawladda soo galo meel ka soo galo wasaaradda maaliyadda kaliya baa taaban karta si transparency oo fair oo aad u qurux badan oo adduunka iyo Soomaalidu baa amaantayna way ku bixiyaan marka laga fiiriyo systemka marka laga fiiriyo sidaan isu bixinay dhaqaalaha iyagu inta uu korayo dal ahaan 3.8 iyo wax la mid ah ayuu koraya waxaanu doonaynaa sida wadamada hadda aadka u fiicanaanu 7 8 9 10 gaarsiino sanooyinka soo socda insha Allah ta'ala waxa hawl weyn laga qabtay si dalku maalgashi u helo in deyn afiska ayaa dawladdu xoog badan gelisay waxaan rajaynaynaa end of February in deynta laga cafiyo Soomaaliya deedna maalgashi badan uu yimaado dalku dib u dhismo quruxdiisii iyo nolosha bulshadu ay soo noqoto dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo hesho amnigu intaan hadda ku sheegay ka sii fiicnaado marka waxaan ku dhihi karaa dalku wuxuu talaabsanayaa talaabo aad u weyn ayuu talaabsanayaa marka dhinac kasta laga fiiriyo dhinaca amniga dhinaca dhaqaalaha dhinaca arrimaha bulshada dhinaca siyaasadda oo aanu hadda ku jirno sidii ay isula qabsan lahaayeen nidaamka federalismka aanu qaadanay federal member state system ahaan maaliyad ahaan dhaqaale ahaan amni ahaan hawl weyna laakiin meel gabagaba maraysa marka dhinaca wasaaradaha laga fiiriyo qaabka wada shaqeynaya